gabar caan ka ahayd barta YouTube-ka oo aabbaheed qudha ka jaray. Halkani waa deersame iyo anigoo ah Ahmed Xasan. Tiba al-Cali waxay ahayd gabar dhalinyaro ah oo firfircoon oo taageerayaal badan ku leh barteeda YouTube-ka oo ay kaga hadli jirtay arrimaha bulshada. Waxay bilowday kanaalkeeda kadib markii ay ka soo guurtay dalkeeda Ciraaq iyadoo dudeedu ahayd 17 jir sanadkii 2017 waxayna ka hadli jirtay arrimaha guurka, isqurxin iyo waxyaabo kale. Tiba waxay u muuqatay mid faraxsan oo soo jiidatay 10,000 oo daawadayaal ah. Bishii Janaayo ayay dib ugu laabatay Ciraaq si ay u soo booqato qoyskeeda waxaana dilay aabbaheed. Si kastaba ha ahaatee, dilka looma malaynayo inuu ahaa mid hore looga fikiray, waxaana aabbaheed lagu xukumay 6 bilood oo keliya oo xarig ah. Dhimashada Tiba waxay kicisay mudaharaadyo Ciraaq oo dhan ah, waxaana dadka ay muujinayeen sida ay arrintan uga xun yihiin. Tiba waxaa barteeda ku xidhnaa kumanaan daawadayaal ah oo geerideeda aad uga naxay. Waxay soo bandhigi jirtay muuqaalo maalinle ah. Muuqaalkeedii ugu horreeyey ee Noofambar 2021 Tiba waxay ku sheegtay inay u guurtay Turkiga si ay u horumariso waxbarashadeeda, laakiin waxay dooratay inay sii joogto sababtoo ah waxay ku faraxsaneed nolosha ay gashay. Sida ay wararku sheegayaan, aabbaheed Tayyib Cali kuma raacsanayn go'aankeeda ah in ay u guurto Turkiga iyo in ay halkaa kula midowdo ninkeeda oo u dhashay Suuriya, kaas oo ay kula nooleed Istanbul. Dilka gabadhan ayaa dhacay dhowr bilood ka hor, hase yeeshee weli waxaa taagan walaaci uu falkaasi abuuray.